كردبي ألف لوس دبي ألف لا قدي ألف لو كردبي ألف لوس دبي ألف لا قدي ألف لو كردبي ألف لو قريب ألف لوس دبي ألف قريب. tartan kan oo lagu tartamayo fahamka iyo xawaaraha akhriska af Soomaaliga ayaa wuxuu ka dhici doonaa wareegiisa koobaad 20ka dugsi walba gudihiisa waxa ku tartami doona 16 arday oo uu dugsigu soo xulay 16ka arday waxay gali doonaan laba wareega koobaad waxa ku soo bixi doona 8 arday arday baa dib u sii tartami doona wareega labaad soo bixi doona 3 arday oo qura waxaa soo baxday natiijada 3 arday ee dugsiga Al-Irshaad ku matali lahaa 60ka arday ee ka soo kala baxay 20ka dugsi ee tartanku dhex yaalo kaalinta koobaad waxa galay Maxamed Axmed Xasan kaalinta labaad waxa galay Jaamac Maxamuud Jaamac kaalinta saddexaad waxa galay Maxamed Cabdilaahi Salaam waxaan qirayaa in xamaasada aad qaadeen idinkuna runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa barnaamijka Daaris oo saaka nagu soo booqday dugsiga sare Al-Irshaad anigoo ah maamulihii dugsiga waxaan aad ugu mahad celinayaa barnaamijka Daaris runtii dhiirigelinta leh ay ku dhiirigelinayaan ardayda tartanka ah ee ay qabteen aad iyo aad baan runtii ugu dhiirigelinayaa ugu mahadnaqayaa waayo waxa weeyaan ardaygu wuxuu mar walba u baahan yahay in loo sameeyo dhiirigelin aad iyo aad u wanaagsan weeyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin